meeshaan waa buur ka mid ah buuraha gobolka loo yaqaano Maine oo ka tirsan dalka Mareykanka. xilligana waa November, qabowga bilaawo rabo. geedaha sida ujeedin kalarkii way bedesheen, caleemaha dhulka soo dhaceen. waa xilli aad u qurux badan waay. weligaa intaad dad aad Soomaali ahayn meel isku keentay ma og sheekeysay shako alaabihii waagaa yareereen looga sheekay jiray didiinka iyo dawacada iyo waraabaha, alaabahaas oo subaga afka la marsanay. marka waxa waaye sheekooyinkaas adduunka aad looga jecel yahay. haddaba qurbaada soo gashiin iska sii diyaariya oo sii xafid. yaa xasuusto Liban Cliff iyo Sharifo Madadeto alleele dadkii hore waa fahmi doonaane. sheekada saasay u muuqataa. faraska markaa koraysid waxaa sameysaa hagaraacin oo ushaa ku dhufanin, si yar ciribtu ku taataabo asaa dhaqaaqaya sida ujeedin. markaa Mareykanka imaaday horta waxaa filayay magaalooyinka New York sida markaan filmaanta ugu daawan jirnay waaga oo kale. laakiin hadda xalku waa kana qofka si socdo faras saaran turk u si socda aniga waay magaaladeeda waay ka xabiye. horta inta dalka hooyo joogay hal maalin faras ma korin, xitaa maba arkin ba faras. waxaa xasuustaa oo la dhihi jiray laba faras hotel shaam ku jirtaa la dhihi jiray, irida ka fiirin jirnay xitaa. maanta waa kana faraskaas anaa iska leh mid meesha joogto waayo duurkaas wuxuu gurigu qayb ka yahay. waa iskaga soo warwareegeynaa marka iska alxamdulilah. aqyar sharafta leh horta qurbaha khasaare iyo faa'iido labadaba lagu qabaa. laakiin waxyaabaha kale oo cajiibka ah oo laga heli karo qurbaha ka mid ah in ma arkin oo waxyaabo aad samaysid oo yaab leh. hadda waa kana buuraa kornay, xitaa dafaha iyo shimbiraha ay ma gaaraan. caadka hoostiinu yaalaa, adduunka dhan hoostiinu yaalaa, dhaxan iyo roob. waxyaaba igu dilaayo waxaa la dhahaa wadamada hormaray aa la dhahaa. hadda waa kana qurbaa joognaa. nin cadaan ah lo-ley ah lo-diisa wadada caadi u dhex marinayo. marka gawaarida waxa lagu qasbaa inay istaagaan sa ujeediin. lo-doodana waa iska socotaa, ilmihii yaryar ee wataan. hadda waxaa loo wadaa xilli qorrax dhici waaye waxaa waaye geedkii maqrib waaye. marka xaafadooday tagayaan, habeenkii dhan ay la saayaan, subaxiina meel goof meeshaas ujeediin cagaaran. ilaahay amarkiisa meeshaan daawasha u nimid. saa ujeediin daanyare geed kasoo degooyo mid dhulku joogaa. marka waxay usoo dhacday ereyga oo isku soo duufeen la dhihi jiray gabdhaha markay isku soo duufeen loo isticmaali jiray. markaa fikiray waxaaba ogaadayba in daanyarada laga keenay oo isku soo duufeen taas ah. isbaan madaxiina waa kanaaco iska dhex fadhiyo, shaqadiisa ma wax magaalada ka socda. xarfaanku ila taagnaa markaa daanyarada sawirka qaadayni wuxuu dhahay kumanaanta markii dib loo fiiriyo dhahay bini'aadamka lugu gacmo ku socon jireen saani oo ay kaayeen oo dhahay. macnaha daanyaradana awoyaashin ahaan jiray. marka intaas saa u fiiri aan waxaan dhahay dagas ma ku jirayaan dhani man i sheegan karaan anima sheeganayay idin kale Allah waaxatu lil bashar. mukulaashan aniga tan kala qabsan doonto fiiriya Soomaaliya marqaad ka noqdo. mal dhaxas waa la hadla waxaan dhahay darbiga aan kasoo boodaysid guriga aan soo galaysid naga dhaafa dhahay. tug camal u dhaqmoosaan dhahay dariska tahay xishmad iyo karaama naga dhaxayso. ma fahanti. marka tan ka dhici doonto fiiriya meesha sal taagan yahay waa lagu soo fiirinaa gurigaadan la dhex joogaano kibreerkaas la gaar maxaa ku samayn kartaa. marka dal walba liiri dadkiisa dhisto. hadda waa kana webi oo waxaa iska dhex mushaaxeynaa Soomaalina u dhaweyn adduunkaas kale ah. hadda waa kaas webiga Jubba iyo webiga Afgooy goor meesaan loogu baashaalaa waay. waan kusoo akornay raaxadana ma soo arkin. hadda kahor waxaa xasuustaa xamar anagoo joogno Shaleemo titinlian galnay. waxaa socday final ay koona biyaarahe atooraa mar uu barf ku socday. marka wixii dhanba waa nala cusbay nugta. hadda maanta waa kana wishkaas saaranahay. qorshahana waxaa waaye buurta mid ugu sareyso inaa korno kasoo taraaraxno. waxaa lugaha noogu xiran saa ujeediinbo labo waxaa noogu xiran oo skis loo yaqaano. marka waa sports waaye aad u xiiso badan haddaa dhex gashid. waa kana anoo barbarad oo qeyr alaasiya diriska ah oo dadka hore waxaan asoo 5 jir soo ciyaari jiray aqoorti ii galiyay. marka wuxuu iga dhaadhicinayaa caadi waay u dhahay waa dhacaysaa horley ka kacay baraf waay wax dhaawac ku geysanayo. laakiin macnaha natiijada wax kasta ka muhiimsan oo leeyahay. waxaan hal mar barnay runtiiseen ahayd 5 bil ka hor waa bartay. waxyaabaha Mareykanka aad kaaga yaabaa waxa ka mid ah saxaro oo been oo xayawaan walba uu yahay ala soo qabana waxa lagu leeyahay sheeg.
maalin dhexdaas waxaa hoos u galnay god dheer oo weligay aan hoos u gelin mugdi waysaa ujeediin ninaana wado marka hal maru tooshka ifiyey waxbaa soo baxay meeshaan ujeediin stalactite la dhahaa wuxuu sheegay in 450 milyan oo sano waxaan meesha ku abuurmeen